ፍጹምነት የክፋት ደስታን መች ፈቅደህ ንጹህ ነው አልከኝ ይህን ቀን ወደህ ተገኝተህ አንተ ፍጹምነት የክፋት ደስታን መች ፈቅደህ ንጹህ ነው አልከኝ ይህን ቀን ወደህ ተገኝተህ የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን salaamun min allaahi calaykum daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastiisi kastoo noola jaan qaadaysaanba waxaannu idin leenahay halkani waa telefishinka caalamiga ee Ethiopian Broadcasting Corporation EBC gaar ahaan laantiisa afka Soomaaliga ee xarunta Addis Ababa daawadayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar oo aan ku soo qaadanay arday ka qalin jabinaysa Jima University isla mar ahaantaasna ku dhigtay xaflad qaali ah isla magaaladaas Jima haddaba daawadayaal barnaamijkan waxaa idin la socodsiinaya anigu waa Cabdirasaaq Ibrahim Class daawadayaal intaan u gudagelin barnaamijkan waxaan jeclaan lahaa inaan idinka horeysiyo wuxuu yar hor u dhacay isla mar ahaantaasna ku saabsan heerka ay taagnaan jirtay waxbarashada deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba heerka ay taagan tahay maanta waxaan la iska indhasaabi karin isbedelka baaxadda weyn ee u dhaxeeyay heerka waxbarashada deegaanka Soomaalida Itoobiya uu taagnaa xilliyadii tilsadii faashistiga ah ay ka talin jireen dalka Itoobiya iyo heerka ay maanta taagan tahay waxbarashada deegaanku waxa hubaalay in farqiga u dhaxeeyo waxbarashada shalay iyo maanta laga dhaxlay isbedelka dimuqraadiyadeed ee ka urtay dalkeena maskaxdaada durba ku soo dhacayso farqiga iyo dilada horumarineed xambaarsan ee ka taabagalay deegaanka Soomaalida Itoobiya dhanka waxbarashada xilliyadii tilsadii shuuciga ah ay ka talin jireen Itoobiya dayacaadii waxbarasho ee haysatay deegaanka iyo waxbarasho la'aantii haysatay una dheeraayeen cadaadiskii xasuuqi iyo hagardaamooyinka tilsadii dhigmiraadka ahaa xilliyadii ay ku amartaagleen jireen dalka Itoobiya tilsadii dhigmiraadka ahaa hayeen xukunka ayaa deegaanka uu ka jiray hal dugsi sare oo ku yaalay magaalada Jigjiga taasoo carruurta gaadhay heerka waxbarasho aysan danta iyo awoodda dhaqaale u saamixi jirin inay waxbarashadooda dugsiga sare halka ka sii wataan taagaana Jigjiga Harar iyo Diridhaba halkaas oo ay kaga hadhi jireen waxbarashada gali jireen nolol ka leexsan oo ka duwan tii waxbarashada sidoo kale waxaa dalka ka jiray kala sarreyn iyo dabaqada ku dul noolaa shacabka oo kaliya haddaba kadib midhihii ka dhashay halgankii dimuqraadiyadeed ee ay hogaaminayeen naftaduurayaashii EPRDF ee xukunka ka tuuray taliskii Mengisti waxaa dib u soo noqotay isxaq dhowrkii qowmiyadeed sinaantii cadaaladii aqoonsiga qowmiyadeed wada noolaanshaha iyo sarreynta dastuurka dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee sugay xuquuqihii qowmiyadaha taasoo sugtay dhammaanba xuquuqihii qowmiyadaha walaalaha ah ee Itoobiya ay lahaayeen hoostana laga xariiqay dastuur sugay dhammaan xorriyaadka qowmiyadaha kobcinta luuqadaha iyo dhaqanka ismaamul iyo dallada hogaamineed ee dawladda dhexe federalismka ka wada dhexeeya waana mid sugtay in dhammaanba isbedelka iyo kobaca dhaqan dhaqaale ee horumarineed ee ka hanaqaday guud ahaanba dimuqraadiga federaalka Itoobiya gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa mid xusuusiyada dil ku reebtay jiilkii ka horeeyay jiilkii la kowsaday dimuqraadiyadda iyo sugidda qowmiyaadka Itoobiya ee ka urtay halgankii dheeraa ee ay bahwadaagta EPRDF kaga tuureen xukunkii dhiigyacabkii Mengistu Haile Mariam taasoo xaqiijisay sharafta karaamada iyo xorriyadda qowmiyadda Soomaalida Itoobiya marka la isbarbar dhigo mugdigii iyo jahligii shalay ay ku jiraan shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maanta oo ay fursada waxbarasho ay guri kasta oo ka mid ah deegaanka ay ka helayaan
haddaba daawadayaal xafladan qaaliga ay dhigtaan ardaydan ka qalin jebinaysa Jimma University ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay riwaayado iyo weliba gabayo ka turjumaya xaaladda ama faa'iidada ay leedahay waxbarashadu iyadoo ugu horreyn halkaasi uu ka soo jeediyay hadallo isugu jira dardaaran iyo weliba wacyigelin lamar ahaantaasna lagu soo gootinayo ardayda ku hadhaysa jaamacaddaas Jimma University iyo weliba inay ku dadaalaan waxbarashadooda injineer cali maxamed baaruud oo isagu ah gudoomiyaha ardayda ka qalin jebinaysa Jimma University
haddaba daawadayaal xafladaasi ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a ardaydii ka qalin jabinaysay jaamacadda Chima University iyo weliba qaar ka mid a iyagu ardayda weli dhigata jaamacaddaasi Chima University.